كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعشركii 54 qeybtii labaad ee dhisidda ubadka ee barnaamijkeenii barbaarinta ubadka. waxa aynu ku soo guda jirnay siyaabaha ubadka looga dhiso dhinaca dhexgalka bulshada. waxa aynu qaadanaynaa maanta insha Allah tacaala qodobka afraad iyo qodobka markaa shanaad. marka qodobka shanaad baynu qaadanaynaa iyo ka lixaad. qodobka shanaad waxa weeye اختيار الطفل أصدقاء له من الأطفال. waxa aynu qodobkii ugu horeeyay ku soo qaadanay macnaha ubadka in lagu xiro oo ubadku ay la joogaan oo waqti la qaataan oo ay la fadhiistaan dadka waaweyn markaa. iyagu waa maxay si markaa dhaqankooda iyo asluubtooda ay u noqoto sida markaa dadka waaweyn ay u dhaqmaan markaa ay u noolaadaan. haddaba haddii ay waalidka u suurtoobi weydo oo ilmihii in aabihii waqti uu helo ama waqti ay isu helaan in yar mooyaane, waxyaabaha muhiimka ah ee bulshada inay ku meeshaan u dhexgalaan waxaa ka mid ah as-suhbatu was-sadaaqa la yiraahdo. yani waa maxay saaxiibtinimada dhabta ah ee wanaagsan ee fiican iyo runta. qofkuna markuu ilmo yar yahay ama qof caadi uu yahay wuxuu markasta jecel yahay inuu markaa waa maxay bulshadii uu dhexgalo, dadkii waa maxay uu markaa u barto oo saaxiib markaa waa maxay ka samaysto. waalidkana waxa la yiraahdaa wanaagooda waxa ka mid ah ilmaha inay saaxiib wanaagsan u dooraan. marka hadii saaxiib wanaagsan u dooraan waxa la yiraahdaa wado fiican oo toosan ay markaa u fureen ama markaa u jeexeen marka. haddaba waa maxay waxyaabaha waxa la yiraahdaa waalidka hadaba looga baahan yahay si markaa saaxiib wanaagsan ugu dooraan waxa ka mid ah ilaa 4 qodob. ka koowaad waxa weeye macnaha ilmaha in la baro bal hada saaxiibtinimadu waxay tahay marka iyo faa'iidooyinka ay leedahay. saaxiibka wanaagsan wuxuu yahay, saaxiibka fiican wuxuu yahay. horta in la baro waxay tahay. lambar 2 waxa la yiraahdaa in ilmaha loo sheego dabeecadaha bulshada uu dhexgalay inay kala duwan yihiin. qof kasta dabeecad gaar ah leeyahay, qof kasta dabeecad gaar ah lagu dhaqmayo, qof kasta wax gaar ah jecel yahay, qofkan waxaan jecelayn kan waxaan u jecel yahay. dabeecadaha bulshada in loo sheego inay kala duwan yihiin. ka saddexaad waxa la yiraahdaa waxa ka mid waxyaabaha ubadka saacida in saaxiibadiisa waa maxay waalidku ay ka caawiyaan inay guriga markaa ay yimaadaan oo markaa waa maxay ay de waqti la qaataan. taa iyadana waa maxay waa arrin aad runtii u muhiim weeyo. de inaga hadda xilligan la joogo iyo xilliyadii hore hadda aad bay u kala duwanaadeen. oo hadda xilligan la joogo de ilmihii guriga buu iska joogaa, mobilkiisu waxay iskaga jiraaba halkaas waa maxay ama mobile isticmaalaya ama TV daawanaya. marka halka xilligii hore waxay ahayd ilmaha inuu banaanka intuu aado oo de saaxiibadiis kala ciyaarayo, banaanka uu iskala joogo ama xaafado kala tagayo ama area uu degan yahay uu ku ciyaarayo. marka xilliga ubadku waxa ku adkaa waalidku dib badan kala kulmi jireen inay guriga ku soo xareeyaan. xilliga hadda la joogana waxa adag ba waalidka ubadka ka leeyihiin waa hadda banaanka u baxa oo gameiskan iyo filmaantana daawanaysaan iyo mobilada isticmaalaan iska xidho oo banaanka taga. marka waxa wanaagsan baa la yiraahdaa macnaha halkii uu imka deemo isticmaali lahaa maanta waxyaabahan faa'iido ku mashquuli lahaa asxaabta uu leeyahay inta loo yeero guriga ay ugu yimaadaan ama guriga dhexdiisa wax ku dhex diyaariyaan, guriga dhexdiisa wax iskaga dhex ciyaaraan ama hadii kale dadka xaafadda la degan jaarka guriga hortiisa waa maxay ama area gaar ama meel gaar ah maxay iskaga soo ciyaaraan. marka taasi waxay dhisaysaa maxay marka inuu bulshada si fiican marka u dhexgalo maankiisa iyo maskaxdiisa waxay kor marka u qaadaysaa. laakiin hadii uu isagoo 7 jir, 9 jir, 10 jir, 12 jir guriga uu dhex fadhiyo oo halka marna TV daawado, marna cunto cuno, marna uu seexdo, marna moolkaas uu ku jiro, dee ma ogaan karo marka bulshada waa maxay waxa markaas ka baxsan oo banaankiisa yaa saas wax ku koraya isagoo waxba aan marka u soo kordhin oo aan kala baran bulshada kala duwan dabeecadooda waxay ku kala duwan yihiin, ka wanaagsan ka fiican waxa dhan marka aan kala ogaan. ka kale waxa ka mid ah in ubadka la baro lambar 4 dadku qaybaha ay u sheekaystaan iyo dadka waxyaabaha lagu la hadlayo iyo waxyaabaha dadka bulshada ay ka wada hadlayaan in wax fiican marka in laga baro
markaad bulshada dhex gashid ubad markaad dhex galaysid waxa kala hadal waxa shay wanaagsan waxa ka sheekaysan waxa iska waraysa qaabka u sheekaysta qaabka looga warramo ka kale waxa la yeesho aad ka muhiimka ah in dad fiican lagu xidho marka in waalidku markasta uu ka warhayo ilmihiisu cid wax la dhiganayo cid uu raacayo cid uu la joogayo waayadana marka arrin aad u muhiim ah marka laakiin hadii waalidkina maxay aabihina iska shaqo tago hooyadana waxay guriga iska joogto ilmihiina ay noqdo marka laba u dhaxeeyo maruu iskuulkiisa iska aadayo cid wax la dhiganayo cid uu raacayaan war loo haynin iyo maruu guriga iskaga jiro mamarkiisa iyo wuxuu isticmaalay halka wax u marayaan iyo wuxuu wadwado cidna aan war ka haynin hadduu labada u dhaxeeyo waxba marka ma soo baxaya dhinaca bulshadana waa ka dhintay qofkii dhinaca gurigana waa ka dhintay marka asaaska ku xiga waxa weeye marka تعويض الطفل البيع والشراء qodobkeeni labaad waxa uu ahaa ilmaha in lagu tababaro oo laga dhiso waxyaabaha yaryar ee kooban ee guriga looga baahan yahay inuu soo iibiyo isagu marka oo guriga intuu keeno shaqadii guriga qayb lixaad leh ka qaadsiba waliba inamada xilliga hadda la joogo haddii marka uu taa ku tababarto tusaalahaan ilmihii oo si fiican u yaqaano alaabaha yar ee xaafadaha laga soo iibin karo guriga waxyaabaha yar u baahan yahay biyaha waxyaabaha yar oo dhan u qaban karo waxayadana muhiim arrin kale taa ka sii yar weyn oo ka sii yar culus dhinaca ganacsiga amarka xilliyada uu ilmuhu jaaniska hayo ama maalmaha uu fasaxa yahay oo kale inay waalidka ilmihi kaxeeyaan oo israacaan oo markaa soo arko bulshada kala duwan qaabka wuxuu iibsanayaan qaabka wuxuu iibinayaan qaabka noloshooda u socoto ka waxaysta ka waxba aan helaynin kaysa wax wanaagsan ilaahay siiyay macna waxa soo dhan soo arkaya marka waa maxay wuxuu baranayaa oo halka uu ka faa'iideeyaa khibrad marka aad u balaaran marka aad u weyn marka waxa maskaxiisa maxay marka ugu furfurmayso wuxuu ogaanayaa macnaha bulshadu leefaliska ay kala leeyihiin marka taana waxa kamid ah waalidka qaabka wax uga qayb qaadan karaan inay marka dhinaca bulshada ay ka caawiyaan hadii waalidku marka ayagu ganacsi leeyihiin kaba si fiicanba oo marka waxay ku tababarayaan marka ay barayaanba shayga inta la siiyo kan inta maraya kan inta maraya kan waxa la siiya kan waxa la yiraahdaa macnaha magaalada dhan shay kasto yaala uu garanaya marka magaciisa uu garanaya qiimihiisa uu garanaya inta la siiyo garanaya macnaha halkii ubadku ay isku mashquul lahaayeen iska ciyaar iyo waxyaabo iska macnaha waxyaabo iska hooseeyay iyo iska waxyaabo ku mashquul lahaayeen ninkan isagu wuxuu noqonayaa in adduunka la socdaba oo waxa kor waa maxay uga baxsano diinin ganacsi iyo hawlo weyn waxay ka sheekeynayaan marka noqonaya ilmi yara laakiin hadii waa maxay guriga ku dhex jiro cidna aan ka warhaynin xogaa dhinaca bulshada meesha maxay aad buu uga hooseynaya marka insha Allah ta'ala waxaynu u baahanahay ubadka waa maxay dhinaca xagalka bulshada saaxiibtinimada wanaagsan in loo sameeyo waalidku ay ka iyagu ay la saaxiibaan dhinaca alaabta isaga loo diro inuu soo qabto soo iibiyo isagu qaabka uu sameeyo waxyaha marka ubadkeena aad inoogu dhisaya marka inoo kobcin dhinaca bulshada marka haday noqoto ilaahasina ku soo koobayna 10 kana wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.